wafdiga uu horkacaya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ee soo gaaray magaalada New York oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa ka qayb galaya kulanka 74 ee wadamada ku bahoobay qaramada midoobay. Magaalada New York hore waxa ugu sugnaa wafdi uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad kaas oo u gogol xaariyay imaatinka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo. Madaxweyne farmaajo ayaa ka jeedin doona khudbad dheer oo kaga hadlaya xaaladda Soomaaliya kulanka qaramada midoobay. Markii uu madaxweynuhu soo gaaray New York ayaa SNTV waxa uu warbixiyay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed waxa uu ka hadlayaa safarka madaxweynaha iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdigu hogaaminayay waxay si nabad ah ku soo gaareen magaalada New York ee dalka Mareykanka. madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa meertada 74 ee shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay. shirka oo sanadkan lagu suntay la dagaalanka faqriga iyo saboolnimada iyo baahinta waxbarasho tayeysan iyo sidoo kale isbeddelka cimilada ayaa madaxweynaha waxa la filayaa maalmaha soo socday inuu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyo. madaxweynuhu intuu shirkan socday sidoo kale wuxuu kulamo iyo shir duceedyo la yeelan doonaa qaar ka mid ah madaxda ka socota caalamka ee shirkan ka qayb galaysa kuwaas oo runtii aan doonayno inaan kala hadalna sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka dalalka nagala dhaxeeya. safarkan madaxweynuhu waxaa ku heliyay wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yarey, agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Nuur Deeriye Xirsi Fuursade. waxaa kaloo jiray wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad oo gogol xaar u ahaa wafdiga madaxweynaha oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada New York. waxaan rajaynaynaa insha Allah kulamada madaxweynaha gali doona iyo shirarka uu la qaadan doono madaxda kale ee ka socota dalalkan saaxiibka nahay in iyagana aan idinku soo gudbin doono insha Allah mar walba sida ay u dhacaan hadii ay beed mahadsantiin. Bashiir Taajir SNTV xarunta qaramada midoobay New York.